waddanka Holland waxaana sidoo kale ay rabaan inay maanta ay kula kulmaan isla markaasna ugu warbixisid xaaladda Soomaaliya sidoo kale waxaa halkan ka hadli doona dad markaasi loogu talagalay inay ku hadlaan magaca jaaliyadda isla markaasna ku soo dhaweeyaan wax walba waxaa ugu wanaagsan inaan ku bilaabo marka adduunyada bani aadamka qofkii ku abaalo ku wanaajiyo hal inaad wanaajidaan laga baahan yahay waxaa ka mid ah wanaag ay sameeyeen joogitaanka sharafta ugu nooshihiin magaalada hadda joognaa ka mid ah waayo haddii yani magaaladan ammaan ahayn oo idinku soo dhaweynin oo dadkii deegaankan iska dhaha dalkan iska dhaha yani idin ogolaanin ayagoo garwaaqsan dhibaatadii idin keentay يعني بني آدمنا قدرين هدين أيها النصر وينين مان أنا أقول مرتقات عن شرط عن مهل لهين إذا كنا ندري برنامج شذا الصور وين وحين ديار ليهم إن معرفتي لبض البرلمان مسؤول هان تلقيني وذام إن إن القبطان وذبحين برلمان الصوماليات سنة كان الصور بسي وحروب هذه يدل يرو أقول له لكن وهي أنا ماذا في يرتهي مركا وحيا على بعض إن وعويان ما دام dalkeeni hadda u guurayo dawladnimo dimuqraadi ah oo degan aan rabno inaan gaarno yani wixii aqoon ahaan lagu kordhinayaan inay nala wadaagaan iyo barnaamijyo badan oo maartay dawladnimada quseeyo yaa lagu nimid si diiran inoo soo dhaweeyay runtii waa ugu mahadcelinayna waxaan kala rabaa inaan u mahadceliyo maayarka magaalada asigoo dalka ka maqan si aan asiga oo nasharfayo anigii idinkaba asiga oo koonfurta kuuriya joogo meesha warkiis ka soo duubay sidii wanaagis noo muujiyo asiga runtii mahad gaar aan usoo jeedinaya walaalayaal waxaad ogtihiin dalkeeni asigoo 30 sano burbur ku jiro batalaaba la qaadayay hadda dalkii wuxuu taagan yahay yani waxaan horta ilaahay naga badbaadiy aan ka soo gudubnay dagaaladii sokeey oo qabaliga ahaa la isu dilaayay Soomaaliya waa ka baxday dhammaantood shacabkeena waxay diyaar u yihiin inay nabad ku wada nooladaan walaaltinimo iyo ixtiraam isku joogaan dawlad noqdaan iyo shacabka diyaar u yihiin laakiin caqabad kale hor taagan caqabadaas maxay tahay dhalinyarada la sheegayo magacaas la baxday oo ma inaad disho yaad jino ku galaysaa saas yaa leeyahay ogolaade waa runtii arrin aad u foorun oo maaragtay dalkeena dhibaato badan gaarsiisay waxaad ogtihiin abaarta hadda la sheegayo abaar waa jirtaa weligeen abaar waa la soo mari jiray abaarta waxaa caawiyey xorriye la'aanta dadka aan shaqaysan karin ma ganacsan karaan xorriyad uma ganacsadaan beerahooda toos uma fashaan beerta lacagkeena la leeyahay beertii oo abaara beer markay aaranto in hataa waxa la weydiiyey beeraleyda waa isku dhiibi lahayd beertii oo abaar on hadda la abuuraya jiilaala la leeyahay marka abuuraysa lacagkeeda howliyaa laga qaadanaya ilmahoodii la leeyahay keena howlaha tabaarada dhaafay waxaa la leeyahay ilmahaaga waxaad keenaysa 3 mil mid qabtid ahaa mid aba keenaysa mid hadad keenaysa la leeyahay yani dadkii waxaa maaragtay u kulmay abaartii iyo colaadaas oo yani weligeed wax Soomaali ahayn arrinka meesha dadka ka jiro marka dadkii waxay isku soo shubteen magaalooyinka inay wada yimaadaan gaajo iyo ammaan xumo yay ka soo wada carareen lama gaasin karo magaalooyinkii gargaarka caalamkana siiyey lama gaasin karo كل جديد كحرن وبلد كونفرنس دان سيده u badan yihiin laga soo bilaabo gaalkacay wixii koonfur ka soo xiga waxay u badan yihiin magaalooyin waa jiraan oo fiican oo laakiin waa jiraan laakiin waxaad arkaysaa gobol kasta ama qiiba laga haysta dhiigara laga haysta ama qiib badan laga haysta gobolka kaliya oo hal tuulan laga haynin waa gobolka Jubbada Dhexe inta kale qiibna dawladda ka degan qiibna ma aragtay shabaab ka haysta gobolka Jubbada Dhexe la dhihi jiray ii shacabkiisu waa la isla iloobay meesha nimanka uma dhigteen oo yani shacabkii waxay ku sugan yihiin cid oo ka warqabta ma jirto warqabtii waxaa ka jira marka abaartaas waxaa loo baahan yahay walaalayaal runtii jaalidaha Soomaaliyeed oo banaanada jira waxyaalo badan yay shacabka tareen arrintaas sidii horey aad u dadaali jirteen mid ka daran ayaa loo baahan yahay weli waagii hore caalamkana la wadaagi jiray WFP hay'adaha samafalka adduunka ka imaanaya raashin ma qiimin jiray ma jirto hadda qofka ugu roon waxaa loo sameynayaa in mobilkiisa hoogaa maaragtay loogu tuuro oo caalamka lagu caawiyo maaragtay amba cidii markaas wax sameyn karto ayaa nolosha isu bedeshay waayo raashin meel loo geynay ma laha marka arrintaas
جاريد الصوماليات ودهانا لنا gaarahaan magaaladan haddan joogno runtii aad iyo aad idinka mahadcelinaya dad isku duuban oo Soomaali ah oo midaysan aad tihiin arrimahaas fiiro gaar ah sidii hore u dadaal jirteen mid ka sii daran waa idinka baahan yahay anuu arrimahan kala hadalno caalamka hadda u socono waxay isugu jiraan saddex arrimood oo muhiimsan koow maadaama baarlamaanka ka socono in baarlamaanka yani arrimihiis aan u bandhigno waxyaalahan ugu baahannahay sida tababarada sida maartay qalbeenta wixii maartay lagu caawin karo iyo يعني جودهان هريك الصومالية دي عالم كمان يسكت هنادان وأدوكتين مدحوينها حتى هلك نوعي مدحوينها حسن الشيخ محمود مركو الله بنكو كجري إلى حد إنه بتاعي هاي وعنك يسوحوها صومالي هشيس عالم كده هشيس لا مثل ده هو بقى عالمي عالم كلنا وحن غوبا هاي هري وناقلنا لسمينه برلمان كبارمان عالم كله هريله حكومة العالم كحرنتو مدحوينها مدحويناش عالم كحرنتو يعني دولة شعب كذي مثلي كرتو عالم كانوا كحرن ذلك اللي بتكرر سنين نقوله لذلك أيام الوضع ساعات درات المركب وحنا نسعون وحكمنا هري وناقص عن عالم كسمينين كو أبارها أي تبادل نوهب ستين أوبن إنه عالم كلبا مثل استهداف أولاداس أو مارتي يعني وحمل هيبدا أو معرضي بني آدم كفكنا ويل كما فكروا علماء كما فكروا عرور كما فكروا حوين كما فكروا علماء هذا مسايد هذا اللي كله وقت اللي أخيار شرط له مركا أرنتها عن عالم قربوا هني بعين وأيضا مثل نويتشتا وذوبهن شعب كاني وإسرائيلي يعني وحام قارتي أرنتي إن معرضي نولش صودي نفط صودي إن معرضي يعني ميل أي كوبد بعدني وياه وعيرش اللي قاعسي هنتي لا حاجته يعني مركا أنت ذاتك كل كاجي تري الهيئة أما استحرير رمى الهايم إن حبتك أنت حتى نشرف ونوضع الشعب يا شعب كوان سدان يدورتين وهذا مركا أريدها أريدها باهي هاي ولا رياض إن كعنك جيستين والله باهي هاي هدي بالبرنامج كاس إلى هي نقوم مكانيو قدامك إن أمان لوضع إذا كأوبار تي جاليدا الصومالي تبي تكون نور وإذا كانت أنا سفر الله وبركاته أنا أقول الله مجا جالية هوين الصومالية بيجو ما شاء الله تبارك الله عادي أنا أفرح سنة وحيالا أنا أقين أنا هرين أقين وبما برلمان كنا شيء هذا محمد نور وحلايا سيدوا ما شاء الله تبارك الله سفير كان سيدوا كله عشان حنوسع عشمين جالية اللي بفرحية ما شاء الله تبارك الله وسود دوار دنها قاجنا سفير كنا نعسم قدومي برلمان وردد بدون سوكول كنا جوجو وكاسا ولا شيء مع سود دوار دنها ولكن بيجنا كوسود دوار دونا نحلي له جالية الصومالية هواك سفير كنا لدلنا